أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayga waa mahadsantihiin sidaad ii garab taagan tihiin like iyo subscribe iyo wax kasta la garab taagan tihiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin kamana daali doono mahad celintiina alla ka sokow allah u mahad celinaayo marka hore marka labaadna idinka shukran idin leeyahay Soomaali weyn meel kastoo isku nooshihiin markaas ka bacdi walaalahay waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin khayr badan allah idin siiyo shukran idin leeyahay maanta maxaan ka hadli rabaa walaashiin Safiyo Tusmo iyo wixii lagu dhigay walaashay Safiyo waxaan ku leeyahay ilaahay kuu boogadaya qalbigaagan allah ku adkeeya ninkii cabdi cajuun ahaa wuxuu dhigay waa maqalnay waan arkay bariyahan dhan waan dhageysanayay marka waxaan ku leeyahay allah kuu boogadaya guurka la guursanaayo qaarkiis waa laga shalaay ma fiicno laakiin waxaan qadar ilaahay waaye midun baa dhar soo xirtay wiilasheena mooda xumo ilaahay noo barakeeyo maasha allah intii wanaagsan badan halalka xun hal dhinaca looga soo jeestaan leeyahay walaasheen waxaan leeyahay ilaahay kuu boogadaya wixii dhacay waa dhaceen ilaahay kuu boogadaya qalbigaagana allah kuu adkeeya wixii kugu dhacay waxaa la yidhaha kun sanay kaa weyn yihiin marka dadka kusoo caynaya oo waalidka aad taagereynayana oo dhageystay aad sheegaysay marka ayagan allah soo hanuuniyo intii xun oo dhan allah soo hanuuniyo intii wanaagsan allah noo siyaadi maasha allah waxaan adi ceebaad lahayn maba kugu dhacayso mugid ninka saas sameeyey asigoo xaaskiisa nin kale warkiisa intuu raaca يعني arrimaha dhanbinaanka soo dhigay fiidiyoyaashii iyo sawirradii iyo wixii dhanbinaanka dhigay nin kale warkiisu qaatay kan kale ka aqli badiyay isagana hadii aqligiisa intaas noqday marka guurka yani ragga waa dhar bay wada xiran yihiin kala ka saax lama ogaan karo kaas oo kale gabdhaha Allah noogu wareejiyo walaasheena ilaahay ha u boogadaya aan leeyahay allah kuu boogadaya allah kuu boogadaya markastaba xumaan aad lahayn hal caayba kugu dhegdhegaysaba wax kastoo lagugu sameeyo caayda waa lagu caynaa haddana dee Soomaali baan buunbuunay Soomaali waa wanaagsan yihiin maasha allah dad arrimaha ka xumaada buux waaye oo social media ku jiro ilaahay noo barakeeyo inta wanaagsan الله نو بديع dad badan ku garab istaagay adigana Allah isku xir qalbigaaga adkayso ilaahay weyna waxidka isku xiran ku leeyahay insha Allah kaas oo kalena gabdhaha iska ilaaliyaan ragga bilicda guud iyo barashada habboona markay kula balamayaan baashaalka guud bay furcad ugu dhoobaan oo maqli jiray hees ma garanayo laakiin xabadaasaan soo ama maqlay reera hees ma ihi laakiin intan markaan arkaan isku dhahaa ragga bilicda guud iyo barashada habboona markay kula balamayaan baashaalka guud bay burcad ugu dhoobaan waa isku kaa wanaajinayaan rag dumar xun waa jiraan oo gabdha nimanka xumeeya nin rag xun waa jira oo gabdhaha xumeeya marka gabadhaha ayagoo ragga ayagoo yaryar bay gabadha haddii awlaad soo dhasho ilaahay markan ay guursato ciyaal soo dhasho habarta bay ugu yeerayaan marka iska ilaali nin yarba ha guursanina gabdhow haddaad ciyaal dhashay nin yar iska ilaali haddii hataa ciyaal dhalin oo maxaa la jiray da'daada xoogaa ay weynaato 40 ama 35 aa gaartid nin adika weyn la raaso aniga gabdhahaas aan kula taliyaa nin yar iskaba ilaali nin yar intuu tala ka boodo halay nin 20 jir intuu tala ka boodo intuu geed ka boodo tala ka booda
marka nimanka yaryar qaar fiican oo maasha allah aqli wanaagsan leh waa jiraan kuwa aan wanaagsaneyn saas oo kaleeto social media u dhex wareegaya anima qabin ku haayana waa jiraan. hadda ninkaas anima qabin gabadheydii ma ahan u dhahay marka dambena waan qabaayo markaan ku guursada dhibtii ugu bilaabatuu sheegaya anaa dhegeystay. hadda markii dambena haddii waxaa lahay xaqa haddii afka laga daboolo keliyaha maxaa la dhihi jiray dilaacaso mehe keliyadu ka dilaacaso ma la dhihi jiray. marka sidii baa dhacdo sheeqii baa soo hadlo u arkay haddii inaan soo muujiyana maba ahaano maxaa la dhihi jiray dad badanaa soo bandhigay aniga dan si loo bandhigay maba aqaan dhinacaas iskuma fiicin. social media cabaar waa ku jiraa laakiin ma fahmin si loo soo bandhigay hadalka runtii in laga sheega fiican sooma nima loo sheegin waxaa la yidhi been baa u qarsoon. marka waxaa caddeyn nooga filan dadkii dhan baa soo bandhigay. marka gabdho waxaa idinkala talinayaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kala talinayaa nin yar iska ilaaliya. haddaa waxoogay da'weynaatid nin yar iska ilaaliya habartiiba kugu yeeraa habartiis ma aqaanay habartiis allaha nooleeye ma garatee. marka waxaad iska ilaalisaan nin yar kaas maba yareene hadda nin weyn oo 32 jiro waaye laakiin kuwa kaasi yar u arkaa soo ma aha in adig yani kaa weyn oona waayeelna ahayn iska raasada gabdhaha dhanaan la hadlaya Safiya bis maahan. Safiya hadda 10 bay u noqotay kulli waa iska ilaalin doontaa kuwa kalena idinkan 10 hadii noqotay gabdho guursada laakiin jaaga xeer iska ilaaliya marka jaagaad heerta martay ma timaha diistay iyo waxaas iska ilaaliya insha allah. asxaabay marka subscribe like share halii dhaho intii ii dhahday intaan ii dhihin baad mahadsantihiin khayr badanaa idinku ogahay maasha allah. heerkaan taaganahay misaba inta ay soo gaarsiiseen ilaahay waa u mahad celinayaa kadibna idinka idiin mahad celinaya waad mahadsantihiin walaalahayga Soomaaliyeed. marka gabdhow nin yar iska ilaaliya nimanka waa hadday yaryihiin dad fiican baa jira laakiin haddee waxoogaa yar da'daada yara weynaata haba isku taaban insha allah haba isku taaban nin yar 40-50 jir meelahaas iska guursado. qaar xun waa jiraan 50ka hataa waa yani ilaahay baa nagu aadi ilaahay kulli ilaahay baa og xaaladda mid qeyr qaba allaha ku aadiyey walaalahayga gabdhaha Soomaaliyeed. wiilashana waxaan leeyahay walaalihiin haddee gabdho wiila fiican baa jira waxaan leeyahay kuwa fiican maasha allah allah idin barakeeye. intii guurtoonkan ilaahay guur qeyr qabaa siiya intii guursatin allah u barakeeya khayr baa idin rajeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.